السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمتي لا ونحريستي انت حنوسني لا عافي وحمراتك مرات خير لا إله ينسي آمين. ما تعرض كوبيغا انت أفرتي بيشي كواد كنا أفر بقول أفرتن زدت كوبيغا لواتني كودي بيشي اللي حاد لو يكون لواتني لحدا heshiiska Iran oo si toos ah wufuudda wadaxaajoodka ayaa gaartay Switzerland. Israa'iil waxay joojisay duqeymihii ay ka waday Lubnaan maalintii afraad kadib saxiix heshiiska is-afgaradka ah oo u dhexeeya Tehran iyo Washington iyo ilaa 114 maalmood kadib markii dagaalka uu bilaabmay. xiriirka u dhexeeya hogaamiyaha sare ee Iran iyo madaxweynaha. Warbaahinta CBS News ayaa soo xigatay ilo diblomaasiyadeed oo sheegay in kulan degdeg ah oo looga hadlayo Israa'iil iyo Hezbollah lagu daray wadaxaajoodka u dhexeeya Washington iyo Tehran ee ka socda Switzerland. New York Times heshiiska Iran wuxuu dejinayaa dagaalka balse ma baabi'inayo walaacada. inkastoo heshiiska uu ku meelgaari ahaa u dhexeeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo Iran si weyn loo soo dhaweeyay, haddana wargeyska New York Times wuxuu sheegayaa in hogaamiyaasha caalamka ay weli si taxadar leh ula socdaan. Wargeyska wuxuu sheegay in heshiisku yahay tallaabo hore loo qaaday lagu yareynayo xiisadda, balse aanu ahayn xal kama dambeys ah. Dad badan ayaa rajeynaya in heshiisku uu soo celin doono suuqyada tamarta iyo ganacsiga caalamka ee dagaalku saameeyay. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaa jiro walaac maadaama arrinta ugu muhiimsan ee barnaamijka nukliyeerka Iran iyo mustaqbalka amniga Bariga Dhexe dib looga dhigay wadaxaajoodka dambe. Falanqeeyaasha waxay aaminsan yihiin in heshiiska uu guuleystay inuu joojiyo dagaalka tooska ah ee 15 maalin markaana uu furmay albaabada wadahadallada, balse uusan weli bixin hadal kama dambeys ah oo ku saabsan arrimaha ugu xasaasisan gobolka. waxaa qodobka in la wadaago heshiiskaas oo lagu heshiiyey oo ilaa hadda uu socdo. wixii kusoo kordhan waa arkaynaa. waa heshiis bilow ah, waxaan lagu yareynayaa dhaqdhaqaaqyada suuqa saameynta iyo ganacsiga. marka Israa'iilna waxay sameynaysaa waa arki doonaa. marka waxaa qodobka in la wadaago. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.